labadii sano ee ugu dambeysay ee xukuumadda Muuse Biixi talinaysay waxaa hoos u dhac ku yimi isticmaalka airport-ka Hargeysa oo ah hadda kan kaliya ee Somaliland oo dhan adeega halka ay kor u kacay adeegga airport-ka Garowe oo ay uga wareegeen diyaaradihii iman jiray kan Hargeysa. Haddaba sababta hoos u dhaca isticmaalka airport-ka Hargeysa ayaa ah dhawaan ay ahayd markii ay hay'adda duulista iyo hawada Somaliland ay cayrisay shaqaalihii ka howlgeli jiray madaarka Hargeysa kuwaas oo aqoon iyo waayo-aragnimo u lahaa hagida diyaaradaha. Hay'addu waxay joojisay isticmaalka waraaqihii go-hoomka oo lagu kala duwi jiray Hargeysa iyo Muqdisho inkastoo mar dambe dib ka ogolaatay. Haddaba waxaa fashilay tayo xumida shaqaalaha madaarka kadib markii ay 3 cisho Sabtidii, Axaddii iyo Isniintii aanay wax diyaarad ahi iman dalka iyadoo lagu sababeeyay jawiga oo xumaa. Su'aashu waa miyay gaadhsiisnayd himilo xumidu halkii loo baajin lahaa duulimaadyada? Dhawaan bay ahayd markii ay diyaaradda Fly Dubai ay warqad cabashaha inay halis gashay mar ay soo fariisanaysay madaarka Hargeysa soo qortay hay'adda duulista hawada Somaliland oo ay ku sababaysan khibrad xumida shaqaalaha. Isku soo ururiyo waa markii ugu horeysay ee ay 3 cisho aanay diyaaradii ka soo degin madaarka Hargeysa isku halan xumida shaqaalaha madaarka.